aad ugu barateen ardayda xanaanada carruurta Iimaan. Haatan waxaan ku galaynaa taxanaheennii shanaad. Waxaan socodsiin doonaa anigoo ah Salmaan Cabdisalaan Axmed. Waxaan kusoo qaadan doonaa saxaabigeena weyn ee Khaalid bin Waliid. Taariikhdiisa haddaan wax yar ka taataabano, magaciisa oo dhammaystiran waa Khaalid bin Waliid bin Muqiiri al-Makhzuumi. Asalkiisa waxa uu ahaa Carab, qabiilka al-Makhzuumi ee Quraysh. Waxa uu ahaa dagaalyahan, fardafuul, hogaamiye islaami ah, kana mid ahaa saxaabada rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Khaalid radiallahu canhu waxa uu ahaa geesi caan ah oo wadnihiisa galowda aqoon. Khaalid radiallahu canhu waxa uu ku dhashay magaalada Maka ee karaamaysan. Aabihii Waliid ibnu Muqiiri waxa uu ka mid ahaa odayaashii qabiilada Bani Makhzuum. Khaalid waxaa la walaalo ahaa 6 wiil iyo 2 gabdhood. Khaalid waxa uu ahaa geesi islaam ah oo ku dagaalama gacantiisa iyo seef. Khaalid waxa uu haystay 3 carruur oo kala ah Cabdiraxmaan bin Khaalid, Muhaajir bin Khaalid, Suleymaan bin Khaalid. Khaalid radiallahu canhu waxa ay taariikhyahanadu sheegaan in uu noolaa intii u dhaxaysay 592 ilaa 642 ee taariikhda miilaadiga. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa ku naanaysay Sayfullaahi al-Masluul. Waxa uu ka dagaalamay Shaam, Faris iyo Ruum. Waxa uu furtay Ciraaq iyo Shaam. Waxa uu ka qayb galay dagaallo badan sida dagaalkii muslimiinta iyo Roomaanka oo tiradoodu ay ahayd 300,000 oo ciidan ah. Muslimiintana waxa ay ahaayeen 3,000. 100,000 waxa ay ahaayeen Carabtii soo raacday inta waddada soo socdeen. Xilalka uu qabtay Khaalid radiallahu canhu waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka Najdi iyo Yamaama, taliyaha sare ee muslimiinta ee Syria, taliyaha gudaha qaybta ee Syria, waqooyiga ee Syria, taliyaha militariga ee Qanaasir. Dagaalada galan waxaa ka mid ah Uxud, Xunayn, Mu'ta, Ridda, dagaalkii Yarmuug, Busaaqa iyo Aqrab, iyo qabsashadii muslimiinta ee Syria. Dagaalkii Mu'ta ayaan wax yar ka taataabanaynaa carruureyna la socda. Dagaalkii Mu'ta waxaa lagu dilay 3 ka mid ah saraakiishii hogaaminayay muslimiinta. Markaas ayuu Khaalid radiallahu canhu waxa uu qabtay hogaamintii ciidankii dagaalamayay. Khaalid waxa uu waday dagaalkii xitaa iyadoo xaaladdu aad u sii xumaanaysay. Khaalid radiallahu canhu waxa uu dagaalamayay si geesinimo dhaaf ah, laakiin waxa uu ogaa haddii uu dagaalkan sii socdo in uu la laayi doono dhammaan ciidankiisa. Markaas ayuu ciidankii dib uga saaray goobtii dagaalka, kuna celiyay magaaladii Madiina. Laakiin dadkii ayaa ku eedeeyeen in uu baqdin dad uga soo cararay goobtii dagaalka. Rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa dadku u sheegay in uu Khaalid sida saxda ah sameeyay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa yiri, Khaalid iyo ciidankiisa mar kale ayaa u dagaalami doona magaca Allah dartiisa subxaanahu wa tacaala. Khaalid radiallahu canhu ayaa nabiga siiyey cinwaankii seeftii Alle, Sayfullah. Hadalkii rasuulkii Allah waxaa la arkay markuu Khaalid wacdaraha ka keenay dagaaladii kaleeto ee dambe sida dagaalkii Yarmuug. Marka labaad waxaan ka taataabanaynaa dagaalkii Yarmuug. Dagaalkii Yarmuug ee dhex maray muslimiinta iyo Roomaanka waxa uu ka dhacay dalka Syria sanadkii 636. Waxa uu socday 6 maalmood. Boqoradii gaalada ayaa isugu keenay ciidan isugu jira Giriig, Mesopotamian, Syrian, Armenian oo tiradoodu ay tahay 200,000 ciidan ah. Waxa uu isugu keenay safafka hore si aysan uga cararin seeftii muslimiinta. Ciidanka intaa le'eg waxay la dagaalamayeen muslimiinta oo tiradoodu ay tahay 24,000. Waxa uu guusha Allah siiyay muslimiinta. Taariikhyahanadu waxa ay sheegaan in goobta al-Yarmuug oo ah webi in lagu dilay 70,000 oo ciidanka Giriig ah iyo xulafadii ay wateen ee boqorkii Hercules. Muslimiinta xaggaas waxaa ka soo gaaray guushii aad ugu weyneyd, guushaas oo sababtay in ay Syria ku soo wareegto gacantii muslimiinta. Si dadka loo tuso in ay guushu ka imaaday xagga Allah oo keliya ayaa xilligii khaliifadii Cumar radiallahu canhu
waxa uu Khaalid radiallahu canhu u sheegay in uu hogaaminta isaga dhiibo ciidankii muslimiinta oo joogay Syria. Khaalid waa uu aqbalay arrintaas oo ka imaaday khaliifadii Cumar radiallahu canhu, laakiin Khaalid waxa uu dagaalamayay asigoo askari caadi ah. Dhimashadiisii Khaalid radiallahu canhu 642 ayuu u dhintay xanuun, waxauna ku dhintay magaalada Xims ee Syria. Hantidii uu haystayna waxa uu ku wareejiyay khaliifadii Cumar radiallahu canhu. Waxa uu dhahay, waxaan ahay seeftii Allah, waxaan ahay halgamaa geesi ah, magaceyguna waa Khaalid radiallahu canhu.